Chinese dumpling derler. Chinese Dumpling. dumpling. Chinese. مرقيدنا واكنا صوص كده. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمانتين ميلو الباجوكتين وحينا ورجينا عمر ديري عافمات إن شاء الله أنت حنوسن الله عافية أنت عافمات قبتنا الله وزايديو ما أنتو حق سنتر كان أرينا مول اختار أيا كويالو إنها مرول بعدنا marka waxaan sameyn jiray hal dhinac unban ka gali jiray oo kasoo bixi jiray maanta waxaan isdhay dabaq saddexaad koro wal wax yaala soo arag waxaan soo arkay hool aad u weyn maasha allah qurux badan oo maqaayado badan ku yaalo indha adeegan sameeyey dhaxdan istaagay xaalay dhay fariiso war intee aadaan dhakee aada kaas ma aada kan ma aada meeshaan maxay iska soo wada horjeedo aada iska fariisaa laydha markaan fariisto waxay imaada 10 qof waraaqadii iyo buugagtoodii waxooda wataan marka waa fiirsanaysaa wixii kaa cajibiyo meeshan waxaa waaye maqaayada dhexdeedan ka duubay waa gadaal viewga saaran meel aad u qurux badan waaye marka waxaan ka dalbaday qayb cabitaanan ka dalbaday qayb waxaan ka dalbaday cunto waxaa dhan miiska lagu keenaya fadhigaaga marka waa wax igu cusub ani waxaan jeclahay wax alla wixii igu cusub inaa ila aragtiin waayo lacagta aan ku cunay shawaarmaha iyo cabitaanka soodhada waa lacag 15 kun oo lacagtaan 15 markaan xisaabiyeyna adi ugu waxaan umaleynaa $4 ilaa $5 ay u dhaxaysaa marka adoo $5 ku cuntay meel qurux badanna aan fariistay waxa ka masuugin naftaada marka wax cunis dadka gabar aan geerideeda maqlin waxay dhigi jirtay dukaamadan qaaliga iyo meelahan saan u qurux badan hana geynin qaali waa ay dhigi jirtay waan galaan dhigi jiray waan ka salgara waa qofka jooga waa qof anoo kale ah waxba ima dheeraan 9 bilood lagu dhalay ana 9 bilood lagu dhalay taa fariisanayna soo bax marka alxamdulillah shawarmiya aan dalbanay waa kana aad ayuu u macaanaa meeshaas u jeedin qofa imaaday hadda wixii shaqaale ahaa u imaaday buugagtay u keeneen soo qof walba uu dalbanaya maqaayadu qofa ka soo baxaayo qof walba uu dalbanaya wuxuu rabo meesha uu maxal dhahay ku cunaya marka meel aad u qurux badan waaye waa idin la jeclaada inaa idin soo gudbiyo guryaha ka baxa oo marmar nafis waa u baahan tihiin inaad soo nafistiin oo ha isdhihin meelahaas waa qaali wax laga cuni karo $5 oo meel qurux badan aad ku fariisatay wax ku cuntana waxay ka dhibaysaa malaha in naftaada ku kordhiso mugi ninkii shawarmaha aan ka cunay aan soo bartay waa kana ما شاء الله شكرا ايش اسمك محمد ما شاء الله انا اسمي هدى اهلا وسهلا شكرا ثانك يو